asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. fid wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aadna maqlaysaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa warbixin ku saabsan muranka badda ee kala dhexeeya soomaaliya ayna ku xoojinayso doodeeda u gudbisay qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay iyo golaha ammaanka ee midooda afrika. wasiirka arrimaha dibadda ee kenya Monica Juma ayaa maanta sheegtay in dowladeedu ay safiirada dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay ee golaha ammaanka iyo ururka midooda afrika ee Nairobi ay siisay warbixin ku saabsan arinta ay isku hayaan Soomaaliya. waxa aan u gudbiyey xaqiiqda arrimaha la isku hayo ayay tiri Monica Juma. safiirada ay Monica sheegtay in ay warbixinta u gudbisay waxaa ka mid ah safiirka UK ee Nairobi iyo midka Faransiiska kadib kulan ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ee ku taal magaalada Nairobi. Ababu Naiwamba oo ah xoghayaha maamulka ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa sheegtay in sharafta dhuleed ee Kenya ay tahay mid lama taabtaan ah isla markaana ay Kenya u xaqiijisay dalalkii ay la hadashay in ay tahay daris wanaagsan. Monica ayaa dhinaca kale maanta sheegtay in Kenya ay diyaar u tahay in ay wada xaajood la gasho dowladda Soomaaliya si arrintani xal looga gaaro. waxaa naga go-an xiisadani in lagu xaliyo wada hadal, waxaanu ku rajo weynahay in xal laga gaari doono oo walaalaheen deriska nala ah iyo annaga aan isfahmi doono ayay tiri wasiiradda arrimaha dibadda Kenya Monica Juma. wasiiradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sheegtay in Kenya ay ka jawaab celin wanaagsan ka heshay dalalka ay arrintani kala hadashay. fariinta aan ka helnay dalalka dunida ayaa ah mid dhiiri gelinaysa oo ah in arrintani lagu xaliyo wada hadal, sidaas darteed wada hadalka waa waxa aan door bidayno ayay tiri wasiiradda arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma. waxaa muuqata in Kenya dalalka caalamka ay kasbanayso oo ay wado dadaalo diblomaasiyadeed oo xoogan, hase yeeshee ma cadda waxa ay dowladda Soomaaliya ka samaysay arrintani. Kenya ayaa dadaal xoogan ugu jirta in laga laabto kiiska dacwada badda Soomaaliya ee yaala maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ku taala magaalada Hague ee dalka Netherland laguna dhameeyo wada hadal, hase yeeshee Soomaaliya ayaa waxaa ka go-an in maxkamadda lagu kala baxo. wixii kusoo kordhay dib ayaan kala socodsiin doonaa. hada billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.